muuqaal kooban oo aan ku sharaxi doono ama aan kaga hadli doono qaabka loo xaneysanayo minxada ama scholarship-ka ama deeqda waxbarashada ee dalka China. China wuxuu ka mid yahay wadamada qaata ardayda ugu tirada badan ee dalka dibadiisa waxbarasho waada. China wuxuu ka mid yahay wadamada ugu dhaqaalaha badan, wuxuu ka mid yahay wadamada ugu kobaca badan isla markaasina ugu saameynta badan caalamka maanta aynu joogno, gaar ahaan dhanka waxbarashada, caafimaadka, adeegyada aasaasiga, militariga iyo nooc kasta ee haataba teknolojiyadda. waa wadan ka mid ah wadamada aadka u horumaray. si aad markaa u xareystay deeqda waxbarashada ama minxadan aan kusoo duumi doono maanta halkan insha Allah, fadlan muuqaalkan daawo isla markaas la sii qaybi oo sii gaarsiiy ardayda kale oo Soomaaliyeed meel kasta joogto. website-kan ayaad soo gelaysaa halkan. website-kan kaaga muuqdo oo aan kusoo dhigi doono videogan qaybtiisa hoose ee description-ka. website-ka markaad soo booqatid waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku qoran scholarships halkan yaala way fara badan yihiin. 6 scholarship ayaa tiraba halkan taala. ka ugu horeeya waa ka dawladdu bixinayso, ka ku xigana waa local government. marka inagu hadda kan videoga aan kaga hadlano ama doonayna casharka inaan ku dubno waa kan ugu sareeya ay ku qoran tahay government scholarship. inta hadaba aynaan scholarship ka xareyn qofku hal shuruud baa looga baahan yahay, taasi oo ah in qofku marka hore uu ogaado jaamacadda uu xareynayo iyo kulliyadaha ay bixiso. marka kulliyad aad doonaysay ama aad rabtid inaad xareysatid haddii jaamacadda aad cusubtid aanay bixinin waxay noqonaysaa markaas inaad scholarship ka weydid. marka fadlan taana aad looga taxadiro doon kartaa jaamacadda u baahan tahay programyada ay bixinayaan halkan ay yaalaan, degree-ga ama level-ka ay waxbarashadu tahay, duration-ka muddada ah iyo luqadda ku baxaso ama luqadda ku baxaso, tuition fee oo ah ardayga inta laga qaadi lahaa haddii uu caadi u dhiganayo aad ku qoranta tigaysaa ama level-ka aad doonaysay associate iyo bachelor iyo degree iyo master aad dooranaya. halka markay ku dooratid level-ka aad doonaysay inaad dooratid halkan institute language-ka imaanaysaa. language-kan waa English iyo Chinese. hadda ka dooranaysaa halkan waxa ku qoran gobolada. marka goboladan inaga inuu jiraan goboladan waa gobolada China. haddii gobolada China halkan iyaguna ku taxan university jaamacadda doonaysay inaad xariisto halkan jaamacadaha China ay ka diiwaan gashan scholarship-kan ama minxadan qaata oo dhan ayaa halkan ka diiwaan gashan halkana programada iyada. haddaba haddii aad doonaysay inaad raadisid halkan ku qoran tahay degree baad imaanaysaa. tusaalahaan inagu hadda waxaan doonaynaa inaan xaleyno waa bachelor. luqadda aan doonayno inaan ku dhigano ama hadhow mustaqbalkan ku dhiganana waa English. tusaalahaan English baan dooranaa. fakal halkan markaa waxaa kaga soo baxaya iyadana waa stateska uu ka kooban yahay China-hu. marka gobolka doonaysay inaad wax ku dhigatid baa ka doonaysaa tusaalahaan Beijing oo kale. halkan waxaa kaga soo baxaya jaamacadaha Beijing ku yaala oo dhan. marka jaamacadaha Beijing ku yaala hadba tii aad doonaysid ama adigu dooqaaga adagoo waliba jaamacadana aad background-keeda iska eegay baad dooranaysaa. kadibna marka inta dhameysid ay waxa taabanaysaa search. marka search taabatid jaamacaddu wata halkan timi. halkan waxaa kaga soo baxaya programyada ay bixiyaan. halkan waxaa kaga soo baxaysa heerka ama bachelor ama master inta ka bixiso, walow aan markii hore bachelor soo raadinay inagu. marka waxaan noo soo baxay oo dhan waa bachelor luqadda ku dhigaysina. halkan kaga muuqataa waxa weeye English. tusaalahaan inagu xareynaa hadda computer science oo kale. computer science-ka ay ku qoran tahay computer science oo kale ayaan tusaalahaan xareynaa. tusaalahaan marka halkan waxaa ku qoran fee-ga ardayga laga qaadayo. haddii uu ardayga caadiga u dhiganayo fee-ga laga qaadayo iyadana waxaa ku qoran halkan per year oo marka waxaa ku qoran tahay luqadda China. haddii doonaysay inaad bedeshid Google-ka waad ka raadin kartaa. lacagta waxaad u bedelaysaa dollar ama USD waad raadinaysaa. marka lacagtaas waxay u dhigantaa $4,300 iyo $4,360 lacag gaaraysa weeye. markaad inta dhameysid oo faculty-ga aad ogaatid isla markaasina jaamacaddu intay ka bixinayso aad ogaatid waxaa laga baahan yahay inaad hessid jaamacadda agency code-keeda ama jaamacad kasta waxay leedahay jaamacad kasta oo Turkiga waxay leedahay. haddaba agenciyada laba qaab baad ku heli kartaa. videogan horta qaybtiisa hoose ee description-ka waan ku soo dhigayaa iyadoo PDF ahaan insha Allah. sidoo kale waad raadin kartaa jaamacadda magaceeda qoraysaa, kadibna xagga dambe waxaad ka raacinaysaa agency number Google-ka aad caadi u gelinaya. deetana jaamacadda liiskeeda jaamacadda ay ku saaraya liiska
faculty kasta inta agency jaamacadda iyo agency numberkeeda Google ku toos ayuu kugu soo saarayaa haddii kalena liiskan ayaan ku soo gelin doonaa insha Allah qaybta hoose ee description-ka jaamacadda aad doonaysid halkaas waxay ku qoraysaa jaamacadda aad doonaysid iyo magaceeda kadibna waxaad taabanaysaa next markaa taabato jaamacadda ku soo baxaya agency numberka ama code ka yar shanta number aad soo copy garaysanaysaa marka hadaba code ka soo copy garaystid linkigaas ayaad riixaysaa halka ka muuqanaya marka aad linkiga soo riixid waxaad imaanaysaa website-kii guud ee laga diiwaangelinayo ardayga website-kan markaad timaadid wuxuu ku qoran yahay waa luqadda Chinaha si aad u bedeshid oo English uga dhigtid waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay English ama luqadda Englishka haddii aad tahay arday hore u diiwaan gashanaa halka aad gelinaysaa password-kaaga iyo email-kaaga iyo verification code-ka laakiin haddii kale waxaad taabanaysaa create an account deetana markaad create an account taabatid username-kaaga halka aad gelinaysaa tusaale warba online oo kale halkan hoose waxaad gelinaysaa email-kaaga halkan waxaad gelinaysaa password-kaaga aad mar labaad hubinaysaa halkan waxaad gelinaysaa validation code waa lambarka yar ku qoran halkan marka fadlan lambarkana aad iska hubiya sidoo kale wax space ha u dhaxaysiinin username-kaaga oo macnaheedu qaab isku xidhan u qor marka hadaba username-kaaga aad soo active gareysatid halkan aad dib ugu soo noqonaysaa kadibna waxaad sameynaysaa login page-keeni markii hore aan taagnayn login waad sameynaysaa halka waxaad gelinaysaa email-kaaga ama username-kii hore aan soo sameynay ayaad gelinaysaa iyo password-kii aad hore soo samaysatay halkan waxaad gelinaysaa validation code-ka magacii hore waa kan cusub ee waa lambarka yar halka ka soo bixi doona waa 4 xaraf kadibna waxaad taabanaysaa sign in ama sii soco sign in aan apply markaad inta taabatid waxa ku soo bixi doona instruction-kan ama warqadan hordhaca ee ay ku qoran tahay information-ka iyo system-ka loo xareynayo iyo shuruudaha ardayga looga baahan yahay iyo qaabka ama talaabooyinka ardaygu marayo marka warqadan waad akhriyaysaa iyadana inuu waqtigeena soo koobana darteed kama gaarna inaan akhrino laakiin warqadan aad baad markaad akhridid oo aad si fiican u fahamtid waxaad taabanaysaa halkaas ay ku dhufan tahay application online marka aad timaadid application online halka waxaa kaa soo bixi doona list kala ku soo baxaya sida aad u jeedid application-ka imika xareynano menu-giisa sare waa casaan waxa ku sheegayaa inuu ku jiro in wali uu process-ku ku jiro hoos baan soo deganaa waxaan maanaa program application category and agency information marka halkan timaadid halkan waxaa ka dooranaysaa program category waxaan ka dooranaa category B oo ah jaamacadaha caadiga ah kadibna halkan waxaad gelinaysaa agency numberkii aan soo koobi karanay ee jaamacaddii anagu aan dooranay numberkii agency-geedii markaad taabatay automatically magacii jaamacaddu halkan automatic u imaanaya then waxaad taabanaysaa save markaad save taabatay waa kan xagga sare kaaga sheegaya inaad jaamacaddaas si guul ahaan inaad jaamacadda information-keedii aad habkaa ku apply garaysay hoos baad u degaysaa markaa kan waa dhaafaysaa markaad hoos timaado halkan waxaad gelinaysaa magacaaga halkan waxaad gelinaysaa surname-kaaga oo ah magacaaga saddexaad halkan waxaad gelinaysaa xilliga aad dhalatay halkan waxaad gelinaysaa gender-kaaga ama jinsigaaga lab iyo dhadig hadba kaa tahay halkan waxaad gelinaysaa xaaladaada guur inaad tahay single iyo inaad tahay married halkan waxaad gelinaysaa country of birth oo waddankaad ku dhalatay halkan waxaad gelinaysaa magaaladaad ku dhalatay halkan waxaad gelinaysaa religion halkan waxaad gelinaysaa diinta aad aaminsan tahay halkan waxaad gelinaysaa nationality ama dhalashadaada asal marka u dhalatay halkan waxaad gelinaysaa native language oo ah luqadda aad u dhalatay tusaale ahaan Soomaali kuma jiro sidaa darteed waxaan ka dooranaa ada Soomaali mikii sidaa darteed waxaad ka dooranaysaa others halkan waxaad gelinaysaa lambarka baasaboorkaaga halkan waxaad gelinaysaa expiration date-kaaga oo ah xilliga uu dhacayo
intaa markaad dhamaysid hoos baad usoo degaysaa, waxaad imaanaysaa contact information kan hoose ayaad imaanaysaa. halkan waxaad gelinaysaa lambarkaaga, halkan waxaad gelinaysaa fakas haddii aad leedahay, haddii kale waad ka boodaysaa haddii aan lahayn. halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga, halkan waxaad gelinaysaa adresskaaga oo ah meesha aad sida rasmiga u degan tahay iminka. markaad intaa dhamaysid hoos baad usoo degaysaa, waxaad imaanaysaa current contact information oo ah hadda meesha aad ku sugan tahay. kii hore foomkii hore aan soo buuxinay wuxuu ahaa permanent information buu ahaa oo ah meesha aad sida rasmiga u degan tahay, laakiin kani waa meesha iminka ku sugan tahay ama goobta iminka ku sugan tahay. halkaa waxaad gelinaysaa lambarkaaga, halkaa waxaad gelinaysaa fakas haddii aad leedahay, halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga. marka emailkaaga hadduu kii hore kan isku mid yahay waxba bedeli maysid. halkan waxaad gelinaysaa adresskaaga ama xaafadda nambarkeeda iyo streetka. markaad intaa dhamaysid ay waxaad taabanaysaa verify and save. verify and save markaad taabatid wuxuu ku keenayaa education and employment history oo ah shaqada iyo meeshaad kasoo shaqaysay iyo goobihii aad wax kusoo baratay. halkan waxaad gelinaysaa higher education oo ah waxbarashadaada ugu sareysa ee aad sidatid, haddii ay tahay bach iyo haddii ay tahay high school iyo haddii ay tahay associate degree iyo haddii ay tahay master iyo haddii ay tahay PhD. hadba waxbarashadaada shahaadada haysatid ee ugu sareysa iyo goobtaad ka qaadatay informationkeeda gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa institute name-ka, tusaale ahaan inagu waxaan xalinaa bachelor, sidaa darteed waxaan gelinaynaa shahaadadeennii dugsiga sare, sidaa darteed waa inaad halkan gelisaa dugsiga sare shahaadadiisa. halkan waxaan ku qoranaa magaca iskuulka, halkan waxaad gelinaysaa field of study. inta badan iskuulladu waxay kula baxaan art iyo science. halkan waxaad gelinaysaa qualification oo ah shahaadadaad ka qaadatay magaceeda. halkan waxaad gelinaysaa dheedkii aad bilowday ama iskuulka aad bilowday. halkan waxaad gelinaysaa dheedkii iskuulka aad ka qalin jabisay. intaa markaad dhamaysid hoos baad usoo degaysaa, waxaad imaanaysaa other educational back, other education. markaad timaadid other education timaadid shahaadada kusoo xigtay aad haysatid baad gelinaysaa. tusaale ahaan waxaan gelinaa kale sal software oo kale. halkan waxaan gelinaa field of study oo ah faculty aan ka baranay ama departmentkii ama waaxdii aan ka baranay. halkan waxaan gelinaysaa shahaadada haysatid nooca ay tahay. halkan waxaad gelinaysaa xilligii aad kuleedkan xaadirtay. halkan waxaad gelinaysaa waqtigii aad ka qalin jabisay. bartu waad imaanaysaa markaad timaadid haddii aad haysatid shahaado saddexaad haysatid iyadana informationkeeda halkan aad sidii hore kula gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa employment historygaaga oo ah meesha aad hadda ka shaqaysid ama meesha aad horey uga soo shaqaysay. iyadana waxaad gelinaysaa halkaa employer name-ka oo ah shirkaddii aad u shaqayn jirtay ama ciddi ku shaqaaleysiisay. halkan waxaad gelinaysaa shaqadii aad qaban jirtay waxay ahayd. halkan waxaad gelinaysaa titlekaagii ama ciwaankii aad lahayd. halkan waxaad gelinaysaa employment duration oo ah muddadii aad shaqaynaysay. halkan waxaad gelinaysaa dheedkii ama xilligii aad shaqada ka tagtay. markaa intaa dhamaysid waxaad taabanaysaa verify and save. markaa intaa soo dhamaysid wuxuu keenayaa qaybta language and professional study plan oo ah luuqadda iyo luuqadaha aad ku hadashid. halkaa Chinese haddii aad luuqadda China wax ka taqaanid levelka joogtid baad dooranaysaa, haddii kalena waxaad ka dooranaysaa nan. halkaa waxaad gelinaysaa haddii aad haysatid shahaado Chinese, haddii aad haysatid levelka aad ka keentay baad ka dooranaysaa ama certificate-ka. haddii kale waxaad imaanaysaa Englishka heerkaaga uu gaadhsan yahay. tusaale guud oo kale ayaan dooranaa inagu. shahaadadan levelka aad ka joogtid, shahaadada inta badan waxaa lagu qiimeeyaa level A1, A2, B1, B2, C1, C2. marka hadba levelka aad ka joogtid intaa ayaad gelinaysaa iyadana halkan. intaa markaad dooratid halkan waxaad ka taabanaysaa apply askan waxaad ka dooranaysaa waxa aad doonaysay inaad waligelaysid ama degree-ga aad doonaysay inaad waligelaysid. tusaale ahaan master, bachelor. halkan aad ka dooranaysaa markaad doorato. tusaale ahaan inagu xalinaa hadda bachelor oo kale. halkan waxaad ka dooranaysaa preferred language oo luuqadda doonaysay inaad wax ku dhigatid. kuma jirto English iyo luuqado kale, laakiin Chinese oo kaliya ta optionalka inooga bannaan. sida darteed Chinese waan dooranaa. discipline-ka aad doonaysay inaad xareystid. tusaale ahaan engineering kale ayaa doonayna inaan xareyno. tusaale ahaan engineering.
halkan waxaa ka doonaysaa majorka aad doonaysa inaad baratid tusaale ahaan computer science and technology oo kale. halkan waxaa ka doonaysaa duration oo ah waqtiga aad doonaysid inaad waxbarashadaada bilowdid. halkan waxaa ka doonaysaa waqtiga aad doonaysid inaad ka qalin jabisid waxbarashadaada. labadan option ee hooseeya iyadana waxaa kala doonaysaa okay kaawaan kasoo gudubnay. halkan waxaad imaanaysaa other contact. kaliya waxaa laga baahan yahay cid lagala soo xiriiro ama si waxaan ku taqaana oo China jooga. laakiin haddii aanu jirinin style, laakiin haddii uusan jirinin leave blank si certificate ay soo maran, waan ka soconaa waxaan maanaa family memberka. family memberka halkan waxaad gelinaysaa adeed leedahay spouse ama xaas aad leedahay magaceeda iyo da'deeda iyo shaqada ay qabato. halkan hoose waxaad gelinaysaa aabaha magaciisa iyo da'diisa iyo shaqada uu qabto. halkan hoose waxaad gelinaysaa hooyada magaceeda iyo da'deeda iyo shaqada ay qabato. marka intaas si wacan u wada gelisid ayaa waxaad taabanaysaa save and verifying. dokumentiyada laga rabo ee requirementiga waa shahaadada oo dhan ayaa soo wada upload garanaysaa. mid ayaad noo soo upload garanaysaa kulli dhammaantood. kulli markaa soo wada upload garaysid ayaad taabanaysaa submit. fadlan aad isaga hubi intaadan submit taaban waa inaad dib ugu noqotaa mar labaad isha soo maraysaa dhammaan xogtii aad buuxisay inay sax tahay. marka aad ku kalsoonaatid in xogta aad buuxisay oo dhan ay sax tahay ayaad taabanaysaa submit.